السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وسلامتين كسو دواذا دنجر شو waxaan idiin wadaa maanta qaybtii labaad ee waraysigii macalin cali mirac cawaale allah u naxariistee oo dad badan ku yaqaanaan heesta soomaaliya ee toosoy uu soo saaray waraysiga qaybtiisa koowaad wax badan oo nooga warramay macalinka oo ku saabsan isbedeladii bulshada soomaaliyeed soo martay isticmaalkii siduu dadka ula dhaqmi jiray afka soomaaliyeed samayntiisa dhibkii laga maray iyo waxyaabo kaloo badan waraysiganna waa waraysi hore oo lagu sameeyey stuudiyaha Danger Media ee magaalada Columbus sanadkii 2014 qaybtan hadda maanta waa qaybtii labaad ee waraysiga qofkaanan hore u soo arkin waraysiga qaybtiisa koobaad channelka gadaal ugu laaban karaa qaybtii hore u soo daawan karaa kana waa ku soo noqon karaa marka insha Allah hadii ilaahay qaybtan waa qaybtii labaad ku soo dhawaada daawasho wacan erayada markii la soo arooriyay ama eray maaragtay laatinkii iyo carabigii iyo luqadii afafkii kale markii la isu keenay soo buundooyin iyo wax soo looma kala qaadaynin soo haye waxa loo kala qaadayay waxa la yiri luqooyinka aan imtixaano luqooyinka ruuxadooda la imtixaanayo fiirinaya marka luqooyinka meesha la qoriyay waxa weeyaan mid waa horta tan isma farti waa farihi luqooyinka ma waa farihi haye fartan ismaaniyada la yiraahdo iyo fartan carabida iyo tan imanka inuu ku dhaqano inuu ku dhaqano laatinka yaa la yiri ma garada hala eego marka waxa la yiri haddii aan boondooyin u samayno haddii luqada aynu ku faani karayno boondooyin hala siiyo luqadaan ku faani karayno boondooyin baa la siinaya faanka makiinadaheedii haddii la helayana la siiyo boondooyin hala siiyo adduunka haddii lagula dhaqan karayna boondooyin hala siiyo alifba'deeda haddii la yaqaano dadku ay yaqaaniina hala siiyo saasaa qolaba todoba afar nooc oo boondaa meelahaasaa loo kala siiyey markaasaa liyo fartan cismaaniyada martan ma ku faani karnaa markaasaa idhahaa inagaa le kaasay 10kiiba heshay 10 heshay ku faanitaanka xaggiisa Soomaali inay leedahay markaasaa li makiinada wax lagu qorayaa ma leedahay markaasaa li mada waxay heshay laba taybareed waxaasay la hal boonda la siiyey marka makiinada wax lagu isticmaalo cusmaaniyada qora ma laha mala markaa boonda la siiyey laba baa qaar baa samayso boonda la siiyey markaasaa li telegram lagu diri karaya markaasaa li mada markaasaa zero la siiyey telegram lama ama marka adduunka ma lagu macaamilin karaya markaasaa mada markaasaa zero la siiyey adigu 13 boonda heshay heshay malaaya mid walba saasaa loo qaaday carabida iyo mid kasta markaasaa markii la qaaday yaa tan laatinka ay la qaadanay markii loo yiri yaa ku faani karnaa markaasaa limada zero la siiyey makiinadihii ma yaalin toban bay heshay makiinadihii allaan jira makiinadihii ma yaalin telegram ma diri toban baa la siiyey adduunka lagu macaamil karaa toban baa la siiyey markii laysu wada gehiyey iyo iyada ugu bunda badnaatay markaasay taa la qaatay afka Soomaaliga ah aad hadda sheegtay dhibka loo soo maray intaasoo muddo ah loo fadhiyay in la sameeyo af Soomaalida ay isku wada garan karaan af ay ku faani karaan af ay adduunyada kula dhaqmi karaan horumarkaas af ay ku horumari karaan intaas loo soo maray hadda soo malaysid sida hadda aan meel walbana ka arkayno adna aad u jeedid in afkii uu gabaabsi yahay dhaqankii waxyaabo badan laga tagay dadkii Soomaalida intii hadda qurbaha la soo aaday iyo maaragtay eeba ka sii dartay intii hore oo Soomaaliga uu gabaabsi ku jira soo kalama Soomaaliga horta gabaabsi ku jira laakiin wax sidaas halkaas u baabayama waxa weeyaan heerkii uu joogay heerku xaq u lahaa yaa la gaarsiinay dadkii aan gaarsiinay macnaha waxa weeyaan waan la qiimeynay dadka u dhashay ayaan luqadoodii qiimeynay oo qiimaha ay lahayd aan siinay dhibaatada haysataa luqada taa weeye laakiin luqada sideedaba waana dhisan tahay xoogna waa leeda marka waxa weeyaan dadkii ma fahamsana in waxaaga laakiin saan kugu sheegay waxa weeyaan qofku haddii luqadiisu ay la liidato waxaan maqlay faransiiska ugu horreeyey wax weysoo yidhaahda haddaad doonayso qolo inaad si fiican u gumaysato dhaqankooda ka baabi'iyo kaaga bar
ma garatay فرنسيسكا يري faransiiska booliska markaasuu algeria iyo dhulkaas iyo saa ugu bilaabay haddii iminka la keeno oo maryahan ay soomadu ay sameeyaan kasoo qaad maryahan ay soomadu sameeyaan dhulka haddii dhaqanka lagu sameeyo haddii kuwaa la keeno oo meelo kale kuwa dhar kale oo la keeno hindiya laga keeno dhulka laga keeno laisma bardhigo dadku waxaa laga yaabaa dadka badankiisu inay kuwaa qaataan ha ma garatay weli ma garanayo wax badan baan arkay wax badan baan yimid meelo laysugu yimid oo dad badani ay isugu yimaadeen oo cuntada iyo lagu eegayey cuntooyinka dadka cuntooyinka la eegayey oo ay soomaaliya ayan kowda u qaadan garan maayo inta soomaaliya kowda qaadata meelo laysugu yimid oo ciyaar la ciyaarayo laysugu yimid oo soomaalidu ayan kowda u qaadan garan maayo oo dhaqankooda kowda u qaadan meelo dharka laysugu dharka iyo marka laysugu yimaado iyo halkaas lagu yaadayo oo ayan soomaalidu ayan kowda u qaadan garan maayo meel walba kowda iyada u qaadanaysa meel walba kowda markaa sidii soomaalida dhaqanka waxa weeyaan masala wixii ayaan la qiimeyn waxa dadkaasi ay la yaabsan yihiin oo wanaagaas ah adigii dadka waxa laga yaabaa inay qiimo kula ahayn oo ay qiimo la yeelato sidii naagta hore caddaankii oo labisanaysay inay qiimo kula yeelato de waxa weeyaan waa la arkay waxa weeyaan dhibaata inaga haysataa in wixiina aynu qiimeyno halkaa dhibaata inaga haysata bal maadaama aad muddooyinkaas oo dhan taariikhdeedii iyo waayo aragnimadeedii aada noo haysid waxaa iga warantaa bal waagaas dareenka dadka soomaalida markii aan ilaa lagu noqono waqtigii gobonimo doonka dareenka dadka siduu ahaa markii calanka soomaaliyeed markii ugu horreysay oo calan soomaaliyeed la taagay oo misna haddana hees qaran ah oo aada soo celisay hees looga dhigay ama hees calan loo sameeyey maxaa dadka dareenkooda siduu ahaa waagaas dee horta lama sheegi karo oo dad muxuu ahaa sideeda gumaysi ku jira ama xagga luqada hakaga jiro ama xagga dhaqaalaha hakaga jiro ama xagga xukunka hakaga jira qofka hadduu gumaysi ku jiro iyo kolley kala dawaa qof madaxa lagaga taagan yahay oo meel lagu ciriirinayo haddii markii luqadii lagu celayo aad luqadaadii aad wax ku qori karay hore qorin maraysid marka waxa weeyaan markii luqada la qoray muxuu ahaa heer aan magaranaysaa weli soomaaliya hore u gaadhin ayay gaadhay waxaana leeyahay haddana iminka waqtiga iminka haddana soomaaliduna sideedaba waxay haysataa fursad aada iyo aad u wanaagsan ay haysataa fursad aada u wanaagsan ay haysataa dhibaatada ina haysataa hal dhibaato soomaalidu hal dhibaato ay leedahay maadaama shishooyin ina soo xukumi jireedoo xukunka aynu qofkii madaxa oo dhan dhaco lahayn ayaa weli tiibaan inaga bixino qofku wuxuu doonayaa in uu la yaabayaa qof soomaalida haddii meel u haysto waa la yaabayaa oo ama uu xastayaa ama waa waxaanu u baranoo sidiisoo u diidaya midda kale waxaad moodaa inaynu had iyo goor xoogeynayno oo caawino shisheeyaha ama luqada shisheeya ama qofka shisheeyaha ah iminka 90% soomaalida haddii laba nin halkaa ay soo taagaan oo nin soomaali yahay oo nin uu ajnabi yahay oo la yidhahdo waa laba dhaktar labadaas waa laba dhaktar ruux is yidhaahda alla ilaah kanaad afgaranaysaa oo afkaada kula hadlaysaa kaga dhegeysaa mooyaane laakiin labada waxaa laga yaabaa dhakhtarnimada inay u aqoonsan yihiin ka aan soomaaliga ahayn oo midabkaas aan soomaaliga ahayn ayaa waxaynu u haysanaa inay wax ajaayib iyo fiican yihiin aada iyo aad baa soomaalida halkaa ugu liidataa waxaa dhacday nin soomaali ah yaay wuxuu yidhi liisi baan u imid oo ana u dacwoynaya markaasaan wixii aan ka doonaya waa u yaqabta liisiga waa nin meesha xukuma ha waa ninka magaalada ninka xukumaya weeyaan magaalada sida mayarka oo kale oo laakiin xukumaya oo askar buu leeyahay oo dacwooyinkooda qaadaya waa kaa magaalo walbana qof noocaas oo kale leedahay ninba magaalo walba way leedahay marka ninbaa boliiska xukumaya macalimiinta la dirayo mid baa macaliminta madax u ah lacagta mid baa madax u ah administrationka maamulka nin baa xukumaya marka kaasaana korka xukumaya kuwan kale lasoo diray
واقرت كبيرها هي كتعليمته هي كدكتورك كل واحد كحكومية كان المشتري شكا يا كان كحكومية ليسي ليا ليستر كوميشن ليستر كوميشن ويان أنا واقرت مركزا وحي لينكي وانو يمد يعني وسوق هذا مركزه اللغة كيوانو دو وحبو دعوة وقتي مركزه صار مركزه يصير ما أنت كي برا ويا شو أنت سعي صار ماشي وصار قال تروح حكي لي صار ما ماشي خليه مركزه يصير وقت كمان كي ليسي جهوا مقيم ليسي كذا دول نقطة كذا ما حد ولا كذا كذا يلا ليسي واقعي كسر ولا كان ليسي كلا هذا كسر كلا صار ما كسر ولا ما دليل ليسي كذا ولا كان كان بدي أقول ليسي ما كان بسومالي ها بسومالي ها كسر أنتوا قصر خلاص كلهم بيلبسوا سوا قضية أنا بسومالي حمودي بسناي نلعدان السجاي نعم السجاي مركب عذر كاسين مقابلنا أين هدي بتكلم أين المود إنه إن ضدكني إن ضدك الشيء أون أي وحكرنا يا في عيني صح واحد تكتي مر سكول آن وهك هذا وحلا كاني نمن عدا أنا هورد اللي يروح للدولة إني سكول لك شقيا نمن عدان سكول هذا لكن إنك شقيا ها وقرما وحويا وكنت يتطولي يميلها مكاسا لا والله كان يعني إني إذا شقيان سكول لك إذا شقيان فرت الله وداس يعني وحياها أن علنك أن هدي جور كش على الله حكمنا لو بدي نسوق حيدو ليش للمدح أهو برد إنك برسها كحبة عضانا يعني كنا اللي لو بدنا إنه وينا شغيل يعني واحد دنيا مشاريع على القط لكن أوش كان هيل كان كرت صغيرين من البروك بالي داوش مركز نكن عضان كأن أقول له ويش ليش laba kursi baa halkaa hortiisa ah miis yarina halkan uu yaallaa oo dee haddii cid u timaado oo la hadlayaanba labada kursi odhan jiray fadhiista oo kusoo fadhiisiyaa haa marka inay laba caddaana ila socdaan maaragtay aniga iga hoos shaqaynaya aan doonaya loo qoro iyo aniga inaan saddexdeed nahay hadduu yidhaahdo labada kursi dee ku fadhiista waxaa laga yaabaa inaan odhan lahaa warinkaa marti ahe ku fadhiista yaa laga yaabaa inaan odhan lahaa لكن نقوم ديني وحيد هيل بروك كرسي كوفريس هيرنس كرسي كوفريس لا والله ديو كوفريسي ها أدينا واحد مركز سو ولي بس هاكو ما أمسينا هذا مثلا مركز على هذا بيسكت تقلو مركزان إن كان عراضي قدام عينا تقو سلوه مركز سائس فيري سول ميشيري يعني قرطان اللي هدوه لنكاني كون خلاص شغينا يا هيرو دي ولن دوران لنكان نمر حدا نوعه حبيس وحوق بحي محا كرسي قبريسة اللي قوه لهم مركزان إنسان تبيس أتكي أنا صار نقضوا ننكي لله الله وحي موقرة مشاهدة موقرة مركزان اللي يلي دول نبضوا على الحيران دول نحن فيه مركز لقات يا لقات لو كانوا حيكونوا اللي سيالك بعيد دول لقات مركز دول دي قال النواي يا وحل اللي نمن بالي عضان في كاملة وإنجليز كان يقول أسمعني يا وحري سيتشوج إذنكم مدو لحب الوضع oo dadka magaalada si caawa u tiriyay dee xabiisada iyo u tiriyay kiiba wuxuu ka mid noqday intii la yidhi sii jooga waa midkii adiga yidhi iska waraysa iska taagno yidhi haa marka waxyaabahan calanka aan ugu mahadnaqaa ka mid a markaas markuu yimid marka iyadoo laba wilnin ay fadhidaan halkaa kursiga ku fadhidaan laba nin oo Soomaali ah ee kursi ku fadhiyaan oo aan wax doonayaan u qabto oo wax doonayaan wax qabtay doonayaan u qabto ayaa naag macallimada caddaana oo booro joogta meesha waa hargeysa oo booro joogta ayaa gurigii roob ka dumiyay markaasuu damcay inuu yidhaahdo war naagtii caddaanka ahayd halkaas gurigaa joogtay dee roobkii ka dumi gurigii cid u dilo basar u qaba ka soo kaxee ama meelgii isaga ila soo hadashay tiri saasay u dhacdeen markaasuu nimankii aan la hadlayay kii kursi ku fadhiyay iyo labadii nin tagnaa intuu iska soo dhaafay yuu damcay inuu aniga ila hadlo kaasaan ku qayliyaani meel waana tiri maxbaad si kaa meel arkay in laga horeeyo
استاجد سكت لا قصد مركزها كيوا كعلى ما أدري ما أقول ما أنا مركزها ور فدي ما هي أدري ما هي واحد ما أدري ما هي أنا ما هي مركزها ور شوف مركزها ما كده ما ور هذي ويجا مارتي أدو ديبد التاجن والله من عطاني حبيس كل شيء كيسان يعني مركز فيلا واحد مارك مركزها دي ما تيبو صومر تيجي إله كهلا نقول لينه فدي لو يسوق هالتاجن هذا هالكاس هذا سودي ما يلا كم ذا يا أنا عالم كل شيء Soomaaliya markii xilligii waqtigaas ay joogtay oo adigana aad ilaahay xamdigiisa aad waqtigaas soo gaartay oo aad joogtay dadkii waqtigaas jiray xilligaas gobonimodoonkii ilaa iyo xilligii dowladnimadii iyo xilliga maanta la maraayo sidee adiga dareenkaaga sidee u kala duwan yihiin aad arkaysaa aad dareensan tahay macnaha Soomaalida waqtigaas iyo Soomaalida maanta joogta sidee u aragtaa inay u kala duwan yihiin horta Soomaalidu sideeda mar hore iyo mar kaleba waa dad meel aad heer sare weey ma yahay weliga Soomaalidu waa iska fiicnay laakiin shisheeyaha jooga ama dalka ha jooga ama dibadda ha jooga ayaan inoo ogolayn inaynu hore u marno hadalkii oo kale laguma ogola inaad xor noqoto oo muuqato laguma ogola shisheeyaha kuma ogola waxa la xishiir laguma ogola markaas waxaa inagu wareegsan oo dhan waxay doonayaan in dhulkeena iyagu ay maamulaan ay doonayaan dhulkan hunguri baa ka haya waxaa jirtay beri Afrika la yiri oo Allah la qabsaday oo lagu soo roray haddana iminka waxaa la ogaaday oo dadkii European-kii iyo waxaasi ay ogaadeen in Afrika ay tahay meel buuxda oo dihin marka waxay doonayaan meelihii inay qabsadaan iminka marka ama ha ku soo galeen sidii ay dawladda meesha joogta ay la xidhanayaan oo saaxiib iskala dhiganayaan rooriyada ama wax kale ha ku soo dhigeen kulli imika waxa ku amal jira inay hadibada kale yahay inay dhulkii macdanta ku jirta iyo nicmada ku jirta ay la baxaan wax kale Afrikana waa buuxda haddaad u fiirsato ama aad yani xoogaa cilmi aad u sii yeelato adaa yaabaya barwaaqada taala meesha hada yaab barwaaqada taala marka waxa weeyaan inageena oo haysano inaga oo haysano dhulkeena inuu barwaaqo yahay oo haysano waxaanu u haysanaa qofku inuu dhoofo oo dibad tago inuu oo soo shaqaysto taasaa ka muuqata laakiin uma muuqato dhulkeenu inuu aad iyo aad u barwaaqo yahay oo wax laga heli karayo oo wax laga samaysan karayo oo tijaar laga noqon karayo waxaa jira dhowr nin oo fahmay oo intay tageen waxoogaa hadda iminka ka sameeyey khudrad iyo alaab iyo ka beeray iyo warshado iyo ka sameeyey warshad allaale warshadii laga sameeyey iminka Soomaaliya iminka kuwa tabacda samaysa iyo tabahalahan wax lagu cabo samaysa iyo warshadaha tasaawub samaysa iyo warshadahaas dad cirkaasay marayaan iminka maasha Allah aankaas marayaan marka waxa weeyaan weynaan weli fahmin waxaynu inay inoo wanaagsan yihiin oo ay tahay inaynu waxayna hadii ka faa'iideysano waa sax wata macallin cali mira cawaale aad iyo aad horta adiga ugu mahadsan fursadan qaaliga ah oo aad nasiisay maanta oo naga faa'iideysanayna inaan waayo aragnimadaadii wax kaa weydiino maxaad u malaynaysaa ciladaha markaan ku soo wada duubno ummadda Soomaaliyeed ee maanta ku daawanaysan si ay uga faa'iideystaan ciladaha maanta nagu jira markii la isku soo wada duubo maxaa u malaynaysaa siiba hadda midaan aan ka hadalnay oo dhaqankeennii afkeennii iyo aan ka cararayno shisheeyaha iyo aan u cararayno dhaqankoodii iyo afkoodii iyo maaragtay aan waxayna sii dhumayaan ama aanan macaadiintii iyo sida loo baahna inaan uga faa'iideysano dhulkeennii iyo dhaqankeennii intaba marka maxaa u malaynaysaa arrimahaas in dib loogu soo celin karo maxaad u malaynaysaa in aan uga bixi karno ciladahan aan uga tilaabsan karno ciladahan horta waxaa jirta quwad xoog u shaqaynaysa oo doonaysa inayna qaybiso oo quwad shisheeye oo doonaysa inayna qaybiso yaa jirta laakiin midda keliya aan malanayo aynu kaga bixi karno waxa weeyaan inagoo isqiimayna oo qiimaa isu yeelno anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ololaha Soomaaliya hadalka ugu soo koobi lahaa haddaydan idinku wixiina aydan qiimayn wixiina oo madaxdiina aydan qiimayn
oo dhaqankiina aydaan qiimayn oo wax a haysataan aydaan qiimayn shisheeye ku qiiman maayo oo magac kugu yeeli maayo soomaali waxay ku amaadaa hal nin liihid dabada hayo ma kacdo waxa weeyaan wax ay abadan ilow in la caayo mooyaane ninkii madaxa waxaan maha war dadkiina markaan adaan adigu dadkiina ayaan qiimayn adigu qiima meli haddaadan adigu qiimayn qiima meli waxaa la yidhi soomaalida waxay tiraa rag waa lix yani dadkaa loola jeedaa ragga bilaasha wixii lasoo qada ragga salaada lasoo qaadaay rag waa lix baa la yidhi waa nin raga iyo nin raga kalkaal rife iyo rife kalkaal qundud iyo anna waykan kusoo celi bal bointigaas waxa weeye rag waa lixaa la yidhi rag nin raga iyo rag kalkaal iyo nin raga kalkaal haye rife waxa weeyaan macaaradka haye iyo rife kalkaal iyo rife kalkaal ha qundud iyo anna waykan iyo anna waykan qundudku waxa weeyaan baa la yidhaahdo meesha kama taga waxsan kama tare kawayga iska muuqda laakiin isagoo aan qolana macaarad iyo cidna ahayn meeluu raacsan yahay ba jira meeshan waa joogaan waa qundud qundud baa la yidhi kan la yidhaha anna waykan waa ka marka wax la qaybsanayo keliya la arko inta kalena aan muuqanba warti maxaa la aniga xaggee iga tagteen aniga qaybteedii ma hortabade gawle laakiin afarta kale waxa weeya waa nin raga iyo nin raga iyo ka caawa kan caawiya ninka ragga taageera macaaradka rife ninka mucaaradka iyo rife kalkaalka iyo macaaradka caawa waxaa la yidhi rag badan oo dad badan oo nin raga ihi waa jiraan soomaali baa laga helayaa laakiin waxaa ku yar ninka ragga kii taageeri lahaa nin ragga kalkaalka yaa yar baa la yidhi isagaana ugu wanaagsan rag marka la eego lixdan ninka ugu wanaagsan waa kaasa la yidhi macaaradku waa xun yahay laakiin waxaa kasii xun baa laleeyahy rifa kalkaalka kaas taageeraya macaaradka ninka taageeraya ayaa ka xun baa la yidhi ninka camaarada marka horta taasaan umalaysaa inuu nagu badan halkaas ayna ku badan rifa kalkaal marka waxaa weeye soomaalidu aad iyo aad bay fursad u haysataa fursad bay haystaa weyn marka waxaan jeclaan lahaa in ilaahay hala qabta in magaranaysa aan la khasaarin soonaynaysano adduunka meesha aad tagto horta waxaad tegaysaa meel allaale meesha aad tagto maanta qof soomaaliya oo yaad ugu tegay kuwa dad dayacan waad ugu tegaysaa laakiin meel allaale meeshay tageen waxaad moodaa in wadaada lasii daaya la yidhahdo meelaha ku fura meel allaale meeshay tageen masaajid bay ka dhigeen waxbay dad bay islaam bay ka faafinayaan meel allaale meesha aad tagto islaam bay ka faafinayaan soomaalidu waa maanta qolada soomaalida waa qolada islaamka ugu xoog badan nimanka baakistaanida hindiga ah ama muslimka hindiga bakistaanka muslimka ah ayaa magaalooyinka ay tagaan masaajiday ka dhisaan laakiin dadka islaamka ihee xoogeeya ee meesha islaamka xoogeeya ama wixii ay ka baqi jireen nimanka islaamka umurkooda ay ka baqi jireen imanka qaata hadday cumaamadii tahay hadday maalinta jimcaha fasaxa tahay hadday waxyaabaha caynkaasa tahay soomaalida waxa muujiya kuwa way muujiyaan islaamnimadooda meesha dadka kale ka baqaayaan haddana maalin artay maalinta ciidda sidai soomaalidu say soo baxdaysay yihiin maasha allah waxyaaba badan aan ku horumarnay oo aan dibadaha markaan imaanay ku horumarnay waxyaaba badanoo waxaa jira aan weli ku dambayno markaa sida weeye markaa soomaalidu waxaan odhan lahaa waxbarasho diintooda ay haystaan iyaga inay ixtiraam niman qof kale qofka kaloo soomaaliga qiimeeyo sax haddaadan qiimayn soomaaliga haddaadan qiimayn dadda ku qiimayn mayso ogow been ma saa wey aad iyo aad umahadsan tahay hal ma raba inaan ku fasaxo maanta waxaa umalaysaa inaan waxaan oo dhan hal markaa dhuran rabaayo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qoraal buug ah ma jira oo aad jeceshahay inaad soo saartid maadaama aad xigmadahan iyo taariikhahan iyo waayo aragnimadan oo dhan ay kugu duugan tahay wax buug ah oo aad kasoo saaraysid weliba siiba xilliyada kala duwanaa oo aad soo martay oo aad xaadirkan ahayd oo dalkii iyo dadka soomaalida ay soo marayna aad ilaahay kugu soo gaarsiiyey cimrigan maasha allah wax buuga ma jiraa marka aad rabtid inaad soo saartid oo arrintaas horta sheekooyin caynkaasoo kale oo loo qabta mooyaane
dhowr jeer baan mar khaasan mar aan Kanada joogay yaan waxoogaa yar ka qoran waan baqay waxaan ka baqay inaan haddaan buug qoro inaan ku talax tago oo shay aan heer aan idhaahdo shaygaas saas aad iyo aad u wanaagsanaa laga yaabo inuu aad iyo aad u wanaagsanayn oo yacni macna in yaroo been ah oon anoo shay yacni qurxinaya inaan erey wax yaroo beena meel kaga yarahe saan u labayo yaan ka baqay inay ku yimaadaan qofka marka wax qorayana dee kole wuxuu sameeyaa wax qurxi markuu qurxiyana wax laga yaabo waxooga yaro faan aan been ama maxaa maganaysa inuu ku yara hadalo marka waxaas ilaa hadhowto haddii aad waxaas kala dambeeyaan miyaan waxoogaa yar intaa yare halkaas bartaas yaa kaa daba iman doontee waxba qorin sidaas u badan waxa gaday ee mar baa jirta xitaa mar aan buug in doona intaan qoray Kanada aan markii dalkii googooy iska daayeen oo kala joogaa ma aadi aadan annaga arrintaas aan jeclaan lahayn inaan runtii wax dhaxala kaa reebano haddii ilaahay maaragta raalli ka dhigo aad iyo aadaan ugu mahadsantahay fursaddan qaaliga ah oo aad caawina siisay barnaamijkeena aad naga yeeshay casumaadda aan kugu soo casunnay haddii ilaahay raalli ka dhigo waxaan rajaynaynaa in ilaahay cimrigaaga inta hadda aad soo qaadatay ka badan ilaahay ku siiyo oo aan waqti kale sidaas oo kale aan kugu soo casunno kugu wareysano barnaamijkeenii daawadayaal intaas ayaan rabnaa inaan uga baxno haddii ilaahay raalli ka dhigo maantoo aan kusoo qaadanay oo marti noogu ahaa macalin cali mira cawaale oo soomaalida badankeedba ay garanayaan dadkiinan daawanayana aan u malaynayo inaad taqaaniin intiina badan at least aada maqasheen heesta Soomaaliya Toosoy ninkii sameeyey heestaas iyo heeso kaleba soo curiyey laakiin heesta Soomaaliya Toosoy taa heesta uu kusoo caanbaxay cali mira cawaale oo ah macalin aqoon-yahan abwaan intaba aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa mar kale iyo mar kale barnaamijkeena uu maanta nagu soo booqday idinkana sidoo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo is arag dambe oo xiiso leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaybtii labaad ee waraysigii macalin cali mira cawaale allah u naxariistee intaasay ku eg tahay barnaamijkan waa Danjir Show haddaad ka heshay barnaamijkeenna oo aadan weli subscribe-ka noo ahayn waxaan ku leenahay kusoo dhawow barnaamijkana taageer subscribe-ka noogu dhufo insha allah saa kuwa dambe ula socotid intaan midka kale ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay anigoo Basra Bilan ah sidaa iyo nabadgelyo